maalin wanaagsan waan ku faraxsanahay inaan maanta munaasabadan aan qayb ka ahaado runtii hadalkii oo dhanba waxaa soo koobay riwaayadihii iyo heesihii lanoo qaaday muhiimaddu ay leedahay in cunuga lagu shaqaysan waqtigiisa waxbarashada la siiyo oo inuu waxbarto oo beeska hore laga soo dhiso runtii waxaa lagu soo koobay riwaayadii hadda iyo sidii loo jilay runtii waxyaabaha dhacayo ayay sheegaysaa ama ay soo koobaysaa riwaayaddu taasoo ay tahay in waalidiintu ay mararka qaar ay u arkaan inay caruurtu ay shaqaystaan ay tahay wax lagu dhiirogeliyo si aysan ahayn cunuga Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu helo noloshiisa caruurnimo inuu markiisa hore la soo dhiso waxbarto iskuul loo diro iskuulkiisa dhameysto haddii la awoodo waaye haddii kalena inta uu ka gaarayo almiino shaqada uusan shaqo loo dirin ka wasaarad ahaan annaga waxaan ka shaqaynaynaa sharcigii caruurta child right bill-ka oo noo maraay meeshii ugu dambeysay kaasoon soo marinay habraacii loogu talagalay haddana insha allah aan horgeyn doono golaha wasiirada sidoo kale waxaan wadnaa program la dhahaayo hooyo ka warhaay caruurtaada kaasoon ku dhiirigelinayno hooyooyinka inay la socdaan nolosha cunugooda sidaad la socotaan waxaa soo batay in caruurta Soomaaliyeed la geliyo dembi ee iyagu shughul ku lahayn loo diro inay dad dhibaateeyaan naftoodana ay haligaan sidaas darteed ayaan waxaan go'aansanay inaan sameeyno awareness taasoo aan ku dhiirigelinayno in hooyooyinka Soomaaliyeed ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda cunuga haddii hooyadiis ama waalidkiis la socon noloshiisa meeshuu aadayo wuxuu ka shaqeeyo saaxiibadiisa iskuulkiisa waxyaaba uu barto waxaa laga yaabaa in dembiye waaweyn oo naftiisana dib u keenayo dadkana ku dhibaateynayo inuu galo sidaas darteed wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa barnaamijkaas aadka u muhiim ah oo aan qabanay phase 1kiisa haddana aan rabno inaan dhammaan gobolada dalka aan ka sameeyno wacyigelintaas sidoo kale waxaan soo wadnaa oo insha Allah aan rabnaa dhawaan inuu naga soo dhamaado sharciga xuquuqda caruurta kaasoo runtii cadeyn doono xuquuqda caruurta iyo tixgal sidoo kalena maxaa la protection siin doono ka xadgudubka ku shaqaysiga caruurta waxaan ku faraxsanahay dhammaan wasiiradii ay qusaysay arintan oo aan isku deegaan doorashanahay inay maanta wada fadhiyaan wasiirka nala joogo wasiirka gaashaandhiga oo loo sheegayna dhibaatadu ay leedahay unuga qori loo dhiibo waxaan rajaynayaa in aad loogu taxdiri doono askareynta caruurta la fiirin doono da'da unuga runtii dhibkeeda ayay leedahay cunuga in loo dhiibo qori isaga qaadi karin uusan ogeyn dhibaatada iyo maxaa lahay waxyeelada uu qorigaas geysan karo waxaan rajaynayaa sidoo kale I think waa gaarsiinaya waxaan rajaynayaa insha Allah in wadankeena maadaama aan hadda aan nahay aan leenahay rajo aad u wanaagsan aan u ambaqaanay dawladnimo in dhammaan shuruucdaas ay dhaqangali doonaan la ogaan doonana cunug kasta Soomaaliyeed inuu helo noloshii uu xaq u lahaa taasoo siinaysa inuu wax barto taasoo la ogaanayo da'da uu shaqada ku bilaabi karo